من Anis Tutorials. Soo dhawaada saaxiibayaal, muuqaalkan maanta waxaan ku baran doonaa sida Bigisaar tikadhka loogu jaro ama gadh loogu sameeyo. Waxaa jira muuqaalo kale aan ka sameynay sida Bigisaar timaha loogu jaro oo channelka ku jira. Soo daawan haddaad u baahan tahay. Koobaadka waxaan soo furinaa application-ka, kabacdi baan waxaan ka dooranaa plus, kabacdi waxaan soo dooranaa picture-kii aan tusaalaha ku sameyn lahayn ama aan gadhka u sameyn lahayn. sidoo kale application-ka haddaad baahantay waxaad ka helaysaa linkiga description-ka yaala. waxaan dooran doonaa picture-kii. Markaan picture-ka soo doorano waxaan ka bixin doonaa 3 tusaale, yacni 3 gadh oo nooc baan ku sameyn doonaa. Kasoo jeedin gadh male sawirkani. kadib waxaan dooranaa tools, waxaan kasii tegaynaa clone, kabacdi baan clone-ka ama falaadhki waxaan saaranaynaa timaha oo ah meesha aan kasoo koobiyeysanayno timaha aan gadhka ka dhigi doono. halkaas ayaan dul saaranaynaa. opacity-ga aan yareyn doonaa, size-kana wax yar baan ku dhisanaynaa, hardness-kana waan yareyn doonaa si isku cabiran. kabacdi wakaas imika gadhka wuu noo soo sameysmay, waad u jeediin. shaarab baan ku xigsiin doonaa ama shaarba. adigu waxaan rabaa inaan gadhka wada gaadhsiiyo gadh weyn isku jooga aan ka dhigo. waxaan isku dayanaa inaan gadhka sare u qaadno. imika uu inoo buuxsamay, keliya waxaa noo hadhay inaan qorno. markaad qoraysidna dhinaca masaxaadda ayaad ku qori doontaa. sidoo kale dad badan ayaa fahmin, markaad dul saaratinta qaybtii aad u baahan tahay, meesha aad u baahan tahay inaad tinta keentid uma taabanaysaa. muhiimaddu waa inaad kaloonka meel dul saaratid, kabacdi aad meeshii aad u baahan tahay aad keentid. waxaa jira muuqaalo aad ku fahmi doontid oo channelka ku jira, kuwaas horey u daawo haddaanad soo daawano muuqaaladan ka horreeya ahaa. waxaan isku dayanaa inaan gadhka qorno, waxaana ku qoraynaa masaxaadda. markaad qoraysidna muhiimaddu waxa weyn inay aad size-kaagu yaraado, uu hardness-kaaguna meel dhex iska ahaado. laakiin haddiiba aad inaad u muujisi rabtid waa inuu hardness-kaagu badnaada, opacity-gaaguna uu badnaada maadaamood wax muujisan aad rabtid. wax yar waxaan kordhin doonaa size-kaan kordhisanaynaa. kabacdi waxaan isku dayi doonaa inaan masaxno dhammaan madmadowga hareeraha ka xiga idil gadhka si uu inoogu muujismo. waan ka biyey gadhka. marka waxaan isku dayi doonaa inaan gadhka khafiifino. opacity-gaan yareysan doonaa, hardness-kana waan yareysan doonaa. gadhka hareerihiisa oo idil baan khafiifin doonaa saad ujeediinba. marka waan yar khafiifinay, waxoogaa markaan yar khafiifino inaan sameyno tusaale kale. sidiisi lamid a tools iyo clone baan sii tegi doonaa. picture-kan ayaan ku sameyn doonaa tusaalaha labaad. size-kaan yareyn doonaa, sidii si lamid a aad u tabti uman maraynaa. size-kaan yar kordhisana, opacity-gaan yareyn doonaa. gadhkana waxaan ka dhigi doonaa result-iga sida picture-ka aad iniga muuqda shaashadda, kaasoo kale ayaan soo saari doonaa. waxaan isku dayi doonaa inaan shaarbahana soo sameyno maadaama picture-ka sameyn uu yahay gadh iyo shaarba keliya ayaan wadaynaa. saad ujeediinba imika waxaan soo dayin doonaa inaan gadhka qaybta yare kala soo gelino. kabacdi waxaan sameyn doonaa inaan yar khafiifino qaybta hore gadhka, laakiin waxaan malaynay gadhkii igaga siibatay. wax yar baan soo celin doonaa. wax yar baan soo celinaa.
kabacdi waxaan isku dayi doonaa inaan qorno opacity-ga badsano, hardness-ka badsano, laakiin waxay noqotay jaamud. Markaas waxaa isku dayi doonaa inaan ka khafiifino, opacity-ga yareysano, hardness-kana yareysano. Markaa gebigeedaba intaa jarno iyadii shaarbahana aan qorno. Jeedinba shaarbahan qoranaa intii u dhudhow mid madow leh baa ka baabiin doonaa. Waxaan isku dayi doonaa inaan gebi ahaanba iska baabiino qaybta kale garhka, maadaama ay noogu jirin picture-ka, saa inaan result-ka soo saarna ayna ku jirin. Gebigeeda waan iska baabiin doonaa. Xoogaa garhka wuxuu u baahan inaan yar khafiifino, aan hareeraha ka qorno. Opacity-gan yareysan doonaa, markaasaan ugu yaacana oo khafiifin doonaa. Opacity-gan yareysanay, size-kan yar badsanay ahayd, saas waan khafiifinaynaa. Iminka afkiisa horaan khafiifinaynaa. Opacity wax yar ku darsanaynaa siduu aad u yar khafiifiyo. Kaas xoogaa hoos buu isku soo dhigay, waan yar qori doonaa. Markaas laakiin saaid buu jaamud yahay, markaas waa inaan aad u yar khafiifinaa maadaamuu geer leeyahay ama line muuqda. Linekaas inaan ka baabiina isku dayi doonaa, inagoo opacity-gana yareysan doonaa. Opacity-ga xoogaa markaan yar dalaacayno oo maraan hoosta jarayno. Picture-kan imika saasaan kusoo dhameynay. Waxaan isku dayi doonaa kan kale inaan sameyno sidoo kale. Cologne iyo tools baan tegaynaa, tools to cologne baan sii maraynaa. Yani saan sidii hore u sameynay, kan opacity-gan yareysan doonaa. Isagna waxaan sameyn doonaa sawirka, saad ku arki doontiin result-ga. Sawirkan garh weyn baan sameynaynaa. Marka waxaan isku dayi doonaa inaan timo badan soo qaadano oo aan garh weyn dul saarno. Saad u jeedinba weli garhkii soo qaadashadii garhkan ku jira. Shaarabkaan ku dari doonaa. Waan soo wada qaadanay. Iminka garhku isku jooga waan soo wada qaadnay. Kaliya waxaa noo hadhay inaan yar khafiifino oo qorno. Intaas ay noo dhiman. Waxaan sameyn doonaa inaan opacity-geena yareysano, size-kan aan wax yar ku darsano, kabacdi aan khafiifino shaarabka iyo qaybta sare ee garhka ama inta qordiidku mari doono hadhow. Soo khafiifinaynaa. Kabacdi waxaan isku dayi doonaa inaan hardness-ka korsano, opacity-gana badsano, si aan qordiid u sameynaa ama line muujisan. Sad jeedinba hoostan kaga bilaabay. Waxaan isku dayi doonaa inta qaybta sare qordiidano eegna waan wadnaa. Sidoo kale shaarbaha qaybta hore afka waan qordiidi doonaa iyadna. Inaan shaarbaha yareyno dhinaca ay garhka kasoo galayaan. Muuqaalkeennii halkan buu inoogu egyahay saaxiibayaal. Waxaan rajeynayaa inaad fahanteen wax badan ka faa'iideen. Sidoo kale haddaad nagu cusub tahay saaxiib subscribe dheh. Muuqaalkan like noo saar si uu dad badan u gaadho. Santahay haddaba intaad noo samaysay. Waa inoo muuqaalkan muuqaalka xiga. Wassalaamu calaykum.